magaaladan Kolina waxaa maanta oo bisha Maars tahay 16 sanadka 2015 ka dhacay kulan lagaga hadlayay wada shaqaynta degmada iyo ururada ay leeyihiin dadka ka soo jeeda jinsiyadaha kale. kulankan waxaa soo qaban qaabiyay oo martigeliyay xafiiskiisana uu ka dhacay duqa degmada Kolin Jan Peterson oo ka soo jeeda xisbiga Fenestaqa. kulanka waxaa sidoo kale fadhiyay taliyaha booliiska ee degmada Kolin Ivana Peterson, agaasimaha arrimaha bulshada ee degmada Kolin Las Rasmussen, iyo xubno matalayay ilaa 10 urur oo ka jira degmada Kolin oo laba kamid ah ay leeyihiin Soomaalidu. markii kulanku dhamaaday ayaa waxaa aan waraysi kooban la yeeshay Maxamed Cabdilaahi Cabdiwahaab oo ku magac dheer Macaane oo isagu ah gudoomiyaha cusub ee ururka Soomaalida ee degmada Kolin. waxaana weydiiyay aragtidiisa ku aadan kulanka. maxamed waa mahadsantahay. kulankan wuxuu ahaa kulan aan caadi ahayn. waxaa nagu martiqaaday xafiiskiisa duqa magaalada Kolin iyo Peterson. waxaynu ka hadlaynay sidii loo horumarin lahaa magaalada tan Kolin, dhalinyarada degan iyo ururada sidii loo horumarin lahaa iyo ka hortagga waxyaabaha loo yaqaan xaq jirka sidii wax laga yeelaa iyo aragtida ay ka qabaan ururada Soomaaliyeed iyo ajnabiga Kolin degan, la dagaalanka xajirnimada iyo wixii laga yeelaa gaar ahaan arrintii ka dhacday Copenhagen 4 wiil ka hor iyo wixii macnaha looga hortagay ayaa laga hadlay. qodobadii ugu muhiimsanaad oo dhan karta kulanka waa laga hadlay hadaad 1 iyo 2 tiraahdo. waxaan aad u macnaha ku sheegayaa qodobka ugu muhiimsan dhowr qodob bay ahaayeen haddaan soo qaado ilaa 2 qodob. qodobka ugu muhiimsan wuxuu ahaa in laga wada shaqeeyo sida dhalinyarada magaalada Kolin degan ee wax baratay ee jaamacadaha ka baxay ee shaqo la'aanta ah iyo qaar ka baxay dugsiga farsamada ee practical la'aanta ah loo heli lahaa loo wada shaqeyn lahaa duqa magaalada Kolin ee shirkadaha la soo keen lahaa oo dhalinyaradaasi waalidkooda aan lahayn wax network ama wax ku xirnaansho ah bulshada deegaanka inteeda kale sida ugu dhaqsaha badan loo dardargelin dadkaas ama dhalinyarada ay shaqo helaan. qodobka labaad oo arkay in asagana hoosta laga xariiqay oo si feejigan looga hadlo waxa kamid ah in sidaan isku badbaadin lahayn xaq jirnada loola dagaalami lahaa iyo ka hortag in la sameeyo waalidiinta la siiyo qalab ama aragtiyo ay ku gartaan dhibaatooyinka markay soo wajahaan. marka dhinaca shaqada iyo xaq jirnimada ayaa ugu muhiimsan. wada shaqaynta ka hor wada shaqaynta waxaan filayaa ururka Soomaalida magaalada Kolin muddo 22 sano ay ula shaqeynayaan Kolin Kommune wax dhibaato badan kama qabno, laakiin problemka aan markaan imaanaynay anaga aan haysanay ama aan qablay oo ahaa integrationka barashada luqadda iyo aragtida ururka laga qabo wuu dhamaaday. hadda waxaan galan wajigii labaad oo ahaa facii labaad ama jireeshkii labaad ayaa hadda dhibaato ku soo wajahay oo ah shaqo la'aan. dadkii waxbay barteen, afkii bay barteen, halka bay ku dhasheen, qaarkood ay garba la keenay jaamacadaha ka baxeen, shaqo ma laha, practice ma laha. marka problemka labaad ee hadda aan la kulanay 22 sano kadib wuxuu noqday sidii dhalinyaradii ama carruurtii halka ku dhalatay ama ayaga la keenay wadanka ay wax uga noqon lahaayeen. taas ayaa hadda aan rabnaa inaan kala doodno wada shaqayntaas inaan abuurno oo waji cusub oo haddaan galayno. waa mastarku muxuu isagu ama duqa magaalada muxuu ka dhigay arrinta? duqa magaalada isaga waa xisbiga garabka bidix waana dadka shaqada bixiyaasha ah iyo ka soo jeeda. waxaan aaminsanahay arrinkaasi haddii xoog uu saaro sida uu ballan qaaday in uu shirkado badan casuumi karo oo ka gadi karo dadka badan ee ajnabiga ah gaar ahaan anagoo aan u fadhin malkaan dadka Soomaaliyeed inuu ka gadi karo fikirkiisa ah in dadkani shaqo la siiyo. ilaa hadda 2 qof ama 3 dhalinyaro ayaa meeshan ka hadashay oo tir jaamacadaha ka baxay shaqada ma haysano. marka magaciina la maqlay waana loo diiday ama ninkii shaqada bixinay gadaal uu noqday oo hadalkii buu ugu gaabiyay. marka arrimahaas oo dhan aad ayuu macnaha ay u dhibsaday. marka wuxuu diyaar u yahay sidoo noo ballan qaaday inuu arrinta dagaal ku qaado. inta waxa dhageystayaal ku eg waraysi iyo barnaamijkan kooban ee aan ka diyaariyay kulanka maanta ka dhacay degmada Kolin ee wadanka Denmark. waxaana waraysigan idin qaaday anigu Maxamed Amiin Siyaad Cabdi. waxaanu idin ka imanayay Radio Hormuud xarunteeda magaalada Kolin.